soo dhaweeyo garoonkan خاطمه garoonkan international Sayid Mohamed Airport madaxweynayaasha maamulka qaatumo wasiirada madaxda kale ururada bulshada halkan isugu yimi inaan u sheegona kana codsado in airportkan hawshu socotay muddo 3 bilood ilaa maanta la bilaabay ilaa maanta hawshiisi ay dhan tahay sida uu injineerkii ku hawshanaa noo sheegayna maanta ay fadhiisan karaan diyaaraduhu noocay doonaan ha noqdeen farxad bay ii tahay idinkana waxay idin tahay sidoo kale farxad iyo guul airport iyadoo ilaa waqtigii ingiriiskii iyo gumeysiyada haysan jiray dalkeena ayaan airport u sameeyay ilaa dawladihii ka dambeeyay maanta maalintii ugu horeysay ay u hesho fursad in diyaaraduhu fadhiisan karto sida darteed waxaan anu hadalka soo koobaya ka codsan lahaa madaxweynayaashu inay noogu dhawaaqaan inuu airportku noo furan yahay sida uu cadeeyay injineerkuna ay diyaaradihii maanta soo fadhiisan karaan intaas ayaan ku soo ururin lahaa haddii ay idin muuqato wax yar oo dhiman guri marka la dhameeyo national buu leeyahay iyadoo hawshu noo socoto baanu dhammaystiranaynaa inta nooga dhaman naqshada airportka oo ah guriyihii iyo masaajidkii iyo hawlahan ku talagalay iyadoo ay noo socoto salaamaya
wasiirka horumarinta hawshan ku shaqo lahaa anigoo ka wakiila madaxweynaha iyo inta kale ee ururada bulshada wasiirada dadka ka soo qaybgalayaasha hawlwadeennada iyo khaatumo dhan meel kasta joogaan anigoo ka wakiila waxa farxad weyn ah in maanta aynu garoonkii si official ah uu furan yahay oo berrito hada waqtiga saacaduhu timeku waa kala duwan yahay dadkii jooga meelaha fogfog annaga waxay noo tahay ilaa kowdii iyo waxaan idin sheegaynaa oo kale marka haddii aanu ka furray waa dhammaystiran yahay ololaha kale maxay tahay noogu xiga iyo shaqada kale oo weyn oo iyana noogu xigta waxa weeye ilaa wiigan ama wiiga soo socda haddii aan la yidhi annaga iyo qalabkayaga iyo annagoo gaashaaman waxaanu tegi doonaa haddii aan la yidhi kii buuhoodle ayaanu tegi doonaa iyana waxaan rajaynaynaa sidaasi leeg inaanu halkaa uga sheegno muddo aan dheerayn inuu isna furan yahay oo lagu soo degi karo oo maxay ahayd aynu hawsha iyada ah weliba wax yar baa ka dhiman kani bilow buu ahaaye waa dhammaystirkii unbaa kaa inoo dhiman insha allah kaana waan waktiga aanu scheduleka aanu u samayno oo degdega waad naga maqli doontaan halkaasaynu ka wada hadli doonaa haddii ala yidhi waa salaamantiin bal wuxuu adkaadaa xididadu u daabmaan baahidu ku daysaa lagu diirsadaa calan dawladi ku faantaa eeriboodho dooro duulimaadku wacaniyo markuu duunyo leeyahay ama dahabka ceedhin gegi aadu wacaniyo waa garoon diyaariyo dalxiiskii xalmeedoo daymada cajibiye khaatuma ku soo dego iyo nabad ku duuro khaatuma ku soo dego iyo nabad ku duuro khaatuma ku soo dego dibadda iyo gudahaba dadka ku haraadani soomaali dirirtiyo walaalihii la kala dilay derisiyo wanaagban doondoonayaye khaatuma ku soo dego gegiyaadu wacaniyo waa garoon diyaariyo dalxiiskii xalmeedo daymada cajabiye khaatuma ku soo dego iyo nabad ku duuro khaatuma ku soo dego iyo nabad ku duuro